محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرمين والجذع حن له وأن إذ ودعه يا نبي يا إمام الحرمين يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام صوت العشار سائحات فلا يا نبي يا إمام الحرمين يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام وارتج مسجده لصوته وبكى يا نبي يا إمام الحرمين وصوت صوت العشار سائحات فلا يا نبي يا إمام الحرمين يا نبي سلام عليك يا نبي يا إمام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته الدائمة عليه وعلى آله وصحابته الكرام البررة وعلينا معهم ببركتهم وبعده. يقول الله جل ذكره: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق رب العرش العظيم. إخوتي في الله، إلهي باوحو ليهي ونقرنا النعم فربضا وإسيك ليه أقرنيو. إلهي باوحو مذيهي nicamtaa fara badan ku shukrinteeda looga shukrinayo iyo uga amaalhaynta looga amaalhayo ilaahay baa mudan. ilaahay baan uga xamdinaynaa nicamta isagu uuna siiyey oo uu mudan yahay in looga shukriyo. ilaahay baa ku mahad leh markaan cadamahayn ilaahay mawjuudiin naga dhigay oo wujuudka noo soo bixiyey. markaa kabacdi ilaahay adwaar badanna kalena soo mariyey, suuro qurxoon nagu sameeyey. ilaahay haddana na koriye caqliga qiimaha badan ee aanu xayawaanka kale kaga soocannahay. ilaahay haddana ummadda nabi maxamed naga dhigay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ee na hanuuniyey, halka dad badan oo naga xoog iyo xeelad iyo xarga badani ay garab mareen hanuunkaas. haddana ilaahi rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama towxiidkii uu keenay si dhaba dadka u qaatay, diintuu keenay dadka si dhaba u rumeeyey.
ilaahay inuu naga dhigay oo mashaayikhdanadii iyo dadkii diintana soo gaarsiinay dad ahlu xaqa ka dhigay ilaahay nicamtaa fara badan iyo kuwa aanan sheegi karin uu leeyahay waa mahadhaynaa inta dabadeed xafladda rasuulullaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam lagu tacdiiminayo waa wax aad u qiimo badan waa wax rasuulullaahi muxamed sallallahu alayhi wasallam nusuustiisa ku cad waa wax qur-aanka ku cad ciddii ilaahay fahamka uu ka qadiyo nasiib darra ku dhacday moogiye ciddii ilaahay uu nasiibkeeda siiyey waxa weeyaan nusuus aad u fara badan oo qur-aankanaga iyo axaadiistanada ku cad unbay nebi moxamed sallallahu alayhi wasallam tacdiimintiisu ay ku caddahay qofbana marka tacdiiminta uu nebi moxamed uu tacdiiminayo ilaahay qofba inbuu nasiib uga dhigay aalyar dad baa u tacdiimiyey aada weyna dad baa u tacdiimiyey naftoodii dad baa ku furtay hanti waxba ma goysee nebi moxamed sallallahu alayhi wasallam ixtiraamidda ay ixtiraamayaan dada naftoodii u ogolaadeen inay nebi moxamed sallallahu alayhi wasallam qadarintiisa iyo xushmaynteeda ay naftoodii iyagu halis u geliyaan dalxat alkhayr saxaabigii qiimaha badnaayoo yidhi naxrii binaxrik nebi moxamedow dhuuntaydu dhuuntaada unbay gaashaan u tahay waa garanaysaanoo dadka muuminiinta waxay garanayaan asxaabu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam siday nebiga u jeclaayeen oo markay la waramayaan ay odhanayeen fidaaka nafsi wa ummii wa abii nebi moxamedow waxaan kugu furanayaa naftaydiiyo maalkayga naftaydiiyo waalid wixii dhalay oo dhan hooyii aabba baan kugu furanayaa oo ay naftooda nebi moxamed ay jecel yihiin inay u noqoto wixii dhibahoo ku dhici lahaa nebiga inay nebigu inta badbaado inay naftooda markaas halis gasho waalidkii uu halis galo dadkaasaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aada u tacdiimiyeen qof walba hibana maalinteeda tacdiimka qadar iyo qiimo unbuu la joogaa iyo waxay yeesheen nasiib qaaliya oo nebi moxamed inay la kulmaan oo ay la jihaad galaan oo ay darsiga ka qaataan bay nasiib u yeesheen ama inagu waxaynu markaa doonaynaa inaan dhabbihii qaadno 1400 sano ka bacdi waqti dheer waxaa markaa dareemi kartaa inay dadkaasi iyagu masiyo dheeraada lahaayeen oo khayr dheeraada ay qaateen laakiin inaguna inaanan qadinin oo khayrka aanan ka qadin darteedun baynu doonaynaa inaan dhabbahoodii qaadno waxaa daw ahoo nala gudboon inaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama inaan sunnadiisi iyo dariiqiisi iyo diinkii uu keenay aan ka difaacno ardaalada weeraraya dadka xunxun oo markaa taagaya nebi moxamed inaan yac ka nidhaahno waa dawgii nagu qurxoonaa waa sidii asxaabta rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama dadkii aflagaadaynayey ee nebiga qowl iyo ficilba inay edabdarro sameeyaan isku dayaya inay yac ka yidhaahdaan siday asxaabta u yeeleen markii nebi moxamed adduunkaba ka tegay dadka edabdarrada sameeyey siday u dhangadeeyeen u edbiyeen iyagoo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasallam jeclaantiisa iyo suluuqiisa ku dadaalaya innagana sidii oo kale unbaana laka doonayaa inaynu diinta islaamka baranno inaan nebi moxamed dhaqankiisii baranno diintaas ilaahay uu nagu soo dhibay oo dhan baa asaga dhaqankiisii ah axaadiistood ogtoo aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo axwaashiisii iyo taqriiraadkiisii ah iyo qur-aankaoo kulligii isaga dhaqankiisii ahaayo caaisha markii la weydiiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama ilaahay khuluq weyn buu inuu leeyahay buu ku tilmaamay kayfa kaana khuluquhu sala allahu calayhi wasalama nebiga khuluqiisii bal nooga warbixi markii la yidhi waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu waxayd qur-aankaabay ahayd wixii qur-aanku faro unbuusan xaggiyo xagga kaga leexanin qur-aanku dad ha loo jilicsanaado buu yidhiyo wuu u jilicsanaa waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin nebi moxamedow waxaad u jilicsanaataa ood u dhimridaaho aada hayinun layinun u ahaataa dadka ku raacay oo mu'miniinta ah baa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasallam ilaahay ku yidhi wuuna yaalay qolana ilaahay wuxuu ku yidhi ku adkow oo jaahidi lkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim qalaf ku noqaliya gaalada iyo kuwa gaalnimada markaa muujinaya iyo kuway hoosta ugu jirto munaafiqiintaba ee islaamnimada keliya muujinaya laakiin uurku hoos uga jiro gaalnimadu
labadaba qallaf ku noqoba rasuulka lagu yiri sallallahu alayhi wasallam uu yeelay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wixii ilaahay amray inagana sidii oo kale la ka doonaya in dhaqankanagu ahaado in marka hore diinka barano kitaabkiisa sunnada inaynu barano markaynu iyo wixii iyaga fahamkooda noo fududeynaya markaan barano dabadeedna inaan sida yihiin ugu dhaqano waa dawga inagana la gudban sida aan aakhiradana ku badbaadayso adduunkana aan ku sharafoobayno rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ihtifaalkiisa markaan u soo noqdo xafladda nabi Muhammad dhalashadiisa lagu maamuusayo dadka muuminiinta qaybab kamidii wayba dadaalaan dadaalena qayb dadaalkiina wali waa sii dhiman yahay inta dadaalka la sameeyay kaliya ma aha in laga sii badiyay ku habanaan lahayd oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam تعظيمinta la taadiiminaya dhalashadiisa in xafladda kaliya lagu ekeeyna laga sii balaariyay ku fiicneed ee maalintii bicthadu waa maalin qaali ah iqra bismi rabbika maalintii nabi Muhammad lagu yiri waa maalin qaali ah in la sheego ku haban in la faaleeyo oo marka xafladiyan fantasiya loo sameeyo maalin ku haban way maalintii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dawlad xoog la u yeeshay ee tabardaradii iyo ihaanaysigii uu ka gudbay ee saxaabada rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay yiraahdeen nabi Allah wixii ilaahay ku amray fuli inaga ku garab taagane ee marka dawlad marka islaam la helay ee hijraduna maalin qaali ah weeya in fantasiya iyo faysta loo sameeyo oo xasuus gaar ah loo sameeyo maalin ku haban weeye maalintii gaaladii markaas aad isu burbureysay yacla yiri ee edab darrada laga celiyay ee qaswatu badrin maalin qiimo badan oo xasuus ku fiican weeye ila aakhiriha nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waqaacidii qaaliga ahayd uu soo maray oo iyo taariikh nololeedkiisa maalmihii ugu sii halista badnaa waa midka ana halista aan sheegaya dib ma aha maalmihii ugu fiicnaa karaba maalmihii cajaa'ibta lahaa ee diintu aad u daahirtay ee cisada islaamka la gaaray فتح مكة يا غزوة بدر يا غزوة تبوك يا مالمها قالقة النصر قواوين أي دين الإسلام كويها شمال محسوس كوهبان وي مالم فايستوين يا فانتسيا كوهبان وحن نصيب در كل عضيين تثبتتك كقدين ومركي يرادين حبتك ليهم سميننا لسكداي وعدته وجينا هدي مؤمنيين ويجوا أي خير دونيان أنت عندنا مال أنت إنه أنا فانتسيا وسمينا أنت نقود ديدان وسيدو كلا سميان inay naga dadaal badiyaan baa habaneed haday dadaalayaan oo yiraahdaan maalin heblana ku darnay ee halka maalina hal la qariyo bil kudliyati diinta islaamka taariikhdeeda hal la qariyo sharafteeda hal la qariyo iyaga ogol markaa ayaga maalmaha ayagu ay daneynayaan in la muujiyo iskuul xun bay furanayaan oo markaa diinta islaamka dadka looga dhuminayo lagu tadliilinayo waxaana loo sameynayaa xaflad sanawi oo iskuulku iska leeyahay haday jaamacad xun sameystaan waa sida haday urur sameystaan waa sida haday kabaniyo yar sameystaan waa xaflad bay sanawi u ogol yihiin nabi Muhammad sallallahu wasallam alayhi xafladiisina way diideen deedan kuwaasi way tageen way dabaysteen inay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dadkiisa ahayn yahuuday ka wakiil yihiin sidaan bacad waxay tahay dadka muslimiinta ahi inay nabigoodii sallallahu alayhi wasallam qofkii taadiiminayay arkaan inay ugu hambaliyayaan iyaguna intaka masayraan yiraahdeen alle intoo kale ma ka sii fiicanaan yala saasa la gudban cidii kuwaasi waa dabaysteen dadna ay kaga ekaanin hal baan muslimiinta xasuusinaya oo muhiim ah dadka danay diidaya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi adduunka dhibka ku soo biiray inay yihiin inta aqliga leh waxay garanayaan way intaan aqli lahayn in la fahamsi loo sheegaa muhiim ah diintanadu waxay ahayd diinu silmi waa diin nabadgelyo ah oo balaayo aan lahayn waxaa ka horeeyay diimo ilaahay uu soo diray oo farabadan anbiyo uu soo dhiibay kulligood waxay ahaayeen mid walba adyaan wada qaali ah oo quman oo nabadgelyada ka shaqeeya dadkii naga horeeyay markay diintoodii intii ku toosneed oo dhimatay ma kuwii ka dambeeyay ardaalada markay diintoodii haleeyeen ay diintoodii eber ka dhigeen baabi'iyeen iyagoo markaas dadka ay wadaadada u yihiin inay qanciyaan oo raali geliyaan danaynaya
waxay rabaanna ay ku qanciyaan. nimankaa diintoodii markay halowday diintii islaamka qaaliga ahayd waxaa loo sameeyey dad markaa diinta islaamka lacag inta ku qaata diintii halaysneed iyagoo fulinaya diinta islaamka shaati uga dhiga ayaa markaas dad sameeyeenoo waa wax muddo dheer ay gaala ka shaqaynayeen. laba shay oo mid walba berinkiisa ku nabadgelayay ayaa labadoodii waxay yidhaahdeen nimankii la sameeyo oo la yidhi dhaqaale ku qaato diinta islaamka haleeya. laba shay bay isu keeneen, tawxiid iyo tahliid bay isu keeneen oo shaqo isku lahayn. tahliidkii kufriga ahaa iyo tawxiidkii diinu silmiga ahaa bay isu keeneen. markaasi waxay yidhaahdeen tawxiidu thalaatha. waxaa ka soo baxay tawxiidkii oo gal looga dhigayo shaati looga dhigayo diintii nasaarada, iyadoo waxa la baahinayaa dadka ay tahay diintii khaldaneed oo lagu tacadiyey oo la haleeyey, rag hore haleeyeen ee nasaarada, iyadoo tii lafteeda la fulinaya baa waxa magac gal shaati la huwisiye looga dhigay diinta islaamka tawxiidu thalaatha. waxaa ka soo baxay oo natiijadii marka murtida ay noqotay waxa hadda caalamka haysto oo muslim iyo gaalba isku qarxinaya. cid ay nabadgeliyeen ma leh. gaalkii soo sameeyey laftiisa joonaatada ka soo qaateen waa isku qarxiyeen. muslimiinta ay dhex joogeen waa idinla tukanaynaa muslim baan islanaha ay lahaayeen waa isku qarxiyeen. tawxiidkii iyo marka tahliidkii la isu keeno tawxiidu thalaatha la yidhi dhibkuu dhalay waynu aragnaaho wuxuu noqday qarax aan cidna u danahayn. gaalkii kii waday qandaraaska soo qaatay iyo kii qandaraaska laga soo qaatay dhammaantood wax ku qarxayoon cidna la badbaadinayn. wuxuu badbaadinaya aan la arag buu noqday. waray kaasi fakarka tawxiidu thalaatha leedah saddexda tawxiidoo la keenay xumaanta ay xun yihiin waaqica ka marqaatiyaho cidna ma aynan deynin. islaanshaha karsanayda lagu qarxi, suuq masaakiin mid ku goobaysanaysa yaanya lagu qarxi, gaalada lala dirinaya ayay tahay. cid walba la qarxiyo, masjidkii la qarxi, meel la daayay lama arko. dadka marka waxa weeye fakrad hadaama ah ee argagixisaahoo balaayaa inuu yahay bay ku caddahay tawxiidu thalaatha oo caalamka ku soo biirtay oon cidna badbaadin. dadka marka muslimiinta waxaa la quman la gudboon inay fakarka inta dareemaan waa kharaab adduunyo iyo kharaab diineeda ay markaa ka waantoomaan ayaa quman. inay fakradaasi ay tahay inkastaysan mawduucaan u socda aynan ahayn, fakradaasi ay tahay dee nasaarada fakarkeedii tahliidkii oo la hirgelinaya inay tahay waxaa markhaati ka ah. waxaa la yidhi waxa la tawxiidinaya tawxiidku saddex ba ahaadee hal ilaah weeye. inay been tahay hoosaa loo daadegay oo hada arki doone waxaa la yidhi halka ilaah dadku u egyahay. gacmo iyo lugo iyo gawso iyo dhabxanag iyo hunguri uu leeyahay. waa la sii waday oo dadka ragguba waaba koobi bad bani aadamka ragga la yaqaana waaba koobi ilaahay baa la yidhi. ilaahay bay laga koobiyey. waxa markaa koobiga ah oo ilaahay waxaan rabaa ilaah lagama koobiyey. nebi aadam waxa u eg nebi aadam waxa u eg ee lagu tilmaamo halkan kore inuu jiro. halkan kore waxa jira nebi aadam u eg ee tawxiidka laga dhigayaahi waxaa muslimiintu ay ama hore ogaayeen ama hadda ogaanaya nebi ciise. waa nebi ciise wuxuu yahay mid nebi aadam u eg. ha ka jurmi yaraadoo dadku weligoodba way soo yaraanayeen. nebi aadam wuu dheeraa, ilmihiisiina jiilba jiilka ka dambeeya way ka soo gaabanayaan way soo gaabanayaan. nebi ciise waa ina nebi aadam buu xubnaha kala mid yahay, waa u eg yahay. markuu u eg yahay inta kala mid yaha ka gaabnaadee waxa nebi aadam laga koobiyeeyo xubin kasta oo nebi aadam leeyahay lalihi waa nebi ciise. haddana cirkuu jiraahoo ilaahay baana yidhi bal rafacahu llah. ilaahay baa halkan kore u qaadayoo samada unbuu joogaa. samadaas waxa jooga meeshaan kore jooga ee nebi aadam u eg markuu nebi ciise noqday. gaalada nasaarada maxay yidhaahdeen ilaahyaalka saddexdahay sheegayaan saddexdaba ciisa isku ah yidhaah. saddexdiiba ciise ah. ciise saddexdii ilaah hadday ku tilmaameen nimankii nasaare aha way khaldayina kuwo kaloo hooyadiisiya sheegana way jiraan. laakiin ciise saddexdii ilaahba asaga hadday yidhaahdeen
kuwaan inay yidhaahdeen saddex tawxiidaan shawadnaa saddexda tawxiid hal ilaahan ku tilmaamaynaa halka ilaahna dadku u egyahay raggu u egyahay ay yidhaahdeen idan waxa la tawxiidinayaa waa nabi ciise u socdaa nimankiisu arkimis diintii nasaaradii iyadii magac islaam loo geliyay waa kii tii nasaarada waxay nimanku wadaan ilaahanagu wuxuu yahay midaan khalqiga meelna kaga ekayn oo laysa kamithlihi shay ilaahi wax la midihi ma jiraan walam yakun lahu kufuwan ahad ilaahi wax u beegtoomaahi ma jiraan hal taclamu lahu samiyan ilaahi mumaathil miyaa loo ogyahay maya istifaamku waa inkaariye wax ilaahu mumaathilihi ma jiraan markuu ilaahi sidaa sheego isku tilmaamay oo yidhi ilaahi wax la midi ma jiraan cidda tiri ilaahi iyo nebi aadam raggan reer nebi aadam baa isku mid ay yidhaahdeen ee markaas inta kaletood ogtiin kusii dareen kuwaasi waxay tilmaamayaan allah ma ahan ilaahi isaga istilmaamay ilaahi isaga unbaa istilmaamay munazahun can alajzaa inuu jusasyaal ka hufan yahay inuunan khalqiga meelna ka shabihin isaga isku tilmaamay ee kuwaas waxay tilmaamayaan oy qandaraaska ku soo qaateen waa yeesowgaan hadda kuwaan gaalada la taagan yihiin iyadii le qandaraas lagu soo qaatay haddana qandaraaskii lama mahadin inta la soo qaatay aakhira ka sokay adduunkii lama mahadina waa kaa qaraxa noqday kii qaatay laftiisoo ku qarxay midkii soo qaatay midu daynaya lama arka iyagii laftoodina ku qarxay waxay noqotay marka bam adduunka dhan qarxinayo dhibkaas islaamka markaa qof kastoo muuminihi inuu fikradaas inay hadaamo tahay ay tahay mukhariba mid adduunka dhan inay qaraabido loogu talagalay ama shaqadeedu ay tahay qof kastaa ku baraarugo rasuulkanaga moxamed sala allahu calayhi wasalama munaasabada aan u samaynayno dhalashadiisu waa wax qaaliyaho qofkii ilaahay nasiib ugu yeelay baa sameeyay waxay tahay wax diintana haddii hadda ay nimanku yidhaahdaan halkaas ku baraarugna yidhaahdaan waa muxuu nebigu hadday wax fiican yihiin u samayn waaye wixii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummadiisa uu faray lafteedii le weeyo war islaamka wax cusub tusaa nebigu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana qofkii islaamka u jideeya waa sunno wanaagsan wuxuu iska leeyahay ajrigeeda iyo intii uga dayatay ajrigeeda oo kale ajrigeedu asagu la baashiray mubaasharo u leeyahay iyo ciddii uga dayatay ajrigeeda oo uu asagu ugu sabab noqday intaba uu leeyahay marka in islaamka wax cusub la tusiyo nasiib maalinba qof baa u yeeshay waxaad garanaysaa ama aadadan garanayn hadda aada ogaataa caalamka islaamka culamadii islaamkoo joogay muslimiintii joogay casrigii taabiciinta ayadoo laba qaybood noqdeen oo labadii qaybood oo labaduba ahlu xaq yihiin isfahmi waayeen ee ay khatar qarka u saaran yihiin tadliil iyo tafsiiq inay isku kufri xukumaan labada qaybood qolo walba qolada kale ay tiraa warandadu waa saxan ogow laba guruub maahan deegaan ma ahan ee waa fahamkii ogow fahamkay laba u noqdeen laba qabiil ma ahan laba deegaan ma ahan laba urur ma ahan ee fahamkii bay laba ku kala noqdeen qarka waxay u saarmeen in ay isku gaalnimo xukumiyaan oo qolada kale waa eber yidhaahdaan iyadoo qarka u saaran alsaysan laysku tadliil iyo tafsiiq xukumin laakiin nacaybkii uu gaaray isfaham la-aanta ayagu ay isfahmayeen inay xukunka isku ridaan ayagoo qarka u saaran ilaahay caalamka wuxuu keenaya imaamu shaafici imaamuna alacdam moxamed ibnu idriis ashaaficiy aa ilaahay caalamka keenay markaasuu wuxuu labadii qoloba ku baraarujiyey fanni aan isaga horti wax uga horey laray fanni aan hortiis saxaabo iyo taabiciina ka waaweyn isagu waa taabicu taabiciy fanni aan hortiba aan daboolka laga qaadinoo weligii wax ku baraarugayba aan la arag ayuu keenay haddaba fannigaas intaanan sheegin maadaama uu qarnigii saddexaad yahay taabicu taabici u yahay ninka keenay oo aan taabiciintiina warba ka hayn oo fannigaas aysan xog ka hayn saxaabadiina aysan warba ka hayn fannigaasi nebigii hadduu fiican yaha nebigaa samayn lahaa ama amri lahaa haddaan nebigii samaynin asxaabtu samayn waa kufriya waa khuraafaad oo waa baadil aan iska dayna ma la dhihi karaa maya labadii islaamka culamadii islaamka oo markaas fahamka aada u kala fogaatay waxay isku fahmeen oo fanni xaq ah oo cilmi xaq ah ayuu ilaahi nasiib uga dhigay inuu noqdo alladii sannahu lilislaam man sanna fi lislaami sunnatan xasana yuu yahay fannigaasi usuululfiqhi fanniga la yidhahdo fanniga usuululfiqhi la yidhaahdo maaha fiqhigii maaha fiqhi maahe waa usuululfiqhi fanniga la yidhaah imaamuna shaaficiyu wax uga horreeyey ma lahaayo hal qof oo horti ku baraarugayoo wax ka sheegay lama hayo kitaab inuu ka qora iska dhaaf
marka wuxuu qoray kitaabka la yiraahdo ar-risaala magaciidaba ar-risaala la yiraahdo waa yar yahay maahan kitaabka ar-risaala la yiraahdo qoray labadii qoloba haday fiiriyeen labadii qoloba iyagoo Baghdad isla jooga dhulka Ciraaq oo isfahmi waayay waxay yihiin labada qolo culamaa riwaaya iyo culamaa ra'yi baa leeyahay culamaa ra'yi waa ragga istinbaadka ma ra'yigu aragtida iyo wax la qoman ma aha waxay sameeyeen istinbaad ay sameeyeen oo xadiidku waxay u sameeyeen dardi iyo cagsi macnahaas uu faa'iideynaya hore hadii loo sii wado waa dardi markii la dabagediyana cagsi intaas uu faa'iideynaya manduuqiisu intaas weeye mafhuumkana intaas uu ku faa'iideynaya aayadii xadiidka nimanka istinbaadkii aadeen ragga Abu Xaniifa khiyaarta ragga kalena waxay yiraahdeen waxaan aad sheegaysaan wax muslim hortiin sheega lama arko naga aamusa wax jeebkiina had noo keenteen fakar adinka jeebkiina had keenteen marka qolana waxay joogtaan nimankan waa jaamidiin waa dad qallalan waa rag riwaayada culamaa riwaaya oo lafdul xadiith iyo lafdul quraan hal dul taagnaado hoos yaan looga degin leh culamaa riwaaya lira raggi marka istinbaadku waxay yiraahdeen raggaani waa rag jaamidiin wax qallalan leh waa dad ibarho aan macna mutasarrif ahayn kuwaasna maxay yiraahdeen culamaa riwaayana kuwa kale waxay leeyihiin dadkaani waa dad waxay diin ka dhigayaan waxay jeebkooda ka keenteen waxaas wax la qaadan kara ma way isku taagayeen soo arki beed qolada kale qarka waxay u saarantahay inay yiraahdaan baadil ay wadaan ilaahi wuxuu nasiib marka ninka uga dhigay Muhammad ibn Idris usulul fiqh luqadana saga u dhashay imaam Malik oo isaga ka da'weyn oo sheekhiisii ma ahan luqada nin u dhashay Abu Hanifa ka sii weyn luqada uma dhalan أحمد بن حنبل ويسجى كير وحير كير لغة وما دلن لغة القرآن كوكسو دقي نينك أرد شيء وحيه إمامنا الشافعي يسجى باقريش يسجى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نينك المركة لغة أرد شيء دلا شدي كليه وحباب ما ترتيل لغة آد وجود دالي أنتو نبع علوم كلام آدين قرآن كمركو برتيب لغة آد وجود دالي أقوم بوها markaasuu wuxuu ahaa agoonnimada ka soo koow ilaahay dadka xasida caloosha ku daaha oo caloosha hooyo ku daaha wax dilma ma caloosha hooyo dadka ku daahana waxa la dadka kale way ka faham dheer yihiin afar sano caloosha hooyadii ku jiray imaamuna Shaafici wuu dilmaya ma aha afar sano culimada gobolkoodu way ka yareeyeen 3 sano iyo xoogaa buu ku jiray yiraahdeen laakiin wuu ku daahay nuxurkii murtidu agoon buu ahaa hooyadii dhaqaale ma hayn isagoo saboola markuu quraankii bartay wuxuu muhiimada saaray inuu luqada carabeed soo qabto ma aha kutub qoran oo soo baranaya ma dadka carabtu meelaha isugu iimaanayaan laba markay isu timaado ag fariisanaya waxay yiraahdaan roo soo qabto reehbil waahib la saasay ku yiraahdaan ashcaarti carabeed luqadii carabtu waxay gabayga isugu gabiyeen xilliga barwaaqada iyo xilliga colaada iyo xilliga nabadda iyo wixii ay isugu gabiyeen xilliyalka fiican iyo xilliyalka xun iyo mid walba ay gabay gaar hay leedahay wixii ashcaarti carabeed markaas dadkaas waxay yiraahdaan soo qaban ilaahi wuxuu siiyay computer aan virus galaynin qalbigu ku shubanaya wixii ku ka dhageystaba haday wuxuu la bataana wuu qoraya warqadu ku qortana ma haysto oo wuxuu ku qorayaa laf cad haduu heladaan meel yaala iyo laf ma wax lagu qori karaa door lafaha iyo qoryaha cadcad iyo waa inuu yar lafmo inuu yar weeyo loox ma qoran karo loox ma qoran karo ko isagu loox yuusan qorane loox qoranna soo ma gadan karo lacag ma hay warqad ma haysto markaas wixii cad arku wax ku soo wada qoranaya luqad hooyadii wax kale marka warqada uma gadi kartee waxay u sameeyay hooyo meeshii bahal miis oo macmalahay u sameeyay markayna anagu miyiga joogno hinsaraar baan oran jirnay laba tiiro gana waaweyn laho inta la taago tiirar gaagaaban kuwa dheer maahane oo mid kale lagu dadbo dhexdeeda miis macmala laga sameeyay miiskii macmalka hooyo u sameeyay maanta wixii uu soo qabto oo meesha uu soo qorto meeshaas u saari imaamuna Shaafici markaas wuxuu noqday isagoo yar oo qaangaar waliba aanu dhaweyn wuxuu noqday carabta ninka ugu shacir ka badan waa shacir uu qasab gabayay ma soo xifdinta soo qabashada uu soo qabtay soo qabashadii waa ashcaarti carabeed soo qabtay ninka zamanka dadka jooga ugu qabashada badan uu noqday waliba qaangaar ma dhawa isagoo yarba waxa loo geeyay 12 sano jira imaam Malik loo geeyay imaam Malik markii loo geeyay oo Madiina loogu geeyay kitaabkiisa muwadda al-iraahu qoray imaam Malik buu yiri 10 inta uu aqriyo ka soo baxay
intii imaamku ugu sharxay in ka dheeraad oo ku sii sharxay waa casharku ka soo baxay ogow wuxuusan imaamkii qoray uusan ka fahamsanayn uu ka fahamsiiyay waana ilmo yar 12 jira maxaa yeelay luqadii la uga aqoon badan yahay ogow imaamka dhan oo kitaabka qoray luqada carbeed oo quraanka iyo xadiidku ku socdaan uga aqoon badan yahay imaam maalik halka cashar bis uu aqriyo cashar labaad ma uu aqriyo inta kale ka baxu yiri waa ka dhageysta kitaabka asaga sharxayaba kitaabkii imaamkan uu qoray isaga sharxaya wuxuuna imaamkii qoray ka fahamsiisnayna uu ku sharxaya علومتي أو هي إمام مالك مد والبوح ليه كان كصباح مد دم بقوم آخرين وأنا شيخيسي مركو سوقات علمي حديث كسوقاتينا وحوسو قد بإمام كان مكور كسر نقضي مدينة كيمد فنق فقه قال يرادو مركا ماشى كيقات مسلم بن خالد نعركي مرتدو مركز وحي تاي إمام كان لقدي وقا قوام بدني هيدتكي مركزو قواعد أصول السمي متك السنة مرقاتي وكان ساس لفظه مرقي عكسي إنه معناه سكوليه دردقة معناه سكوليه منطوقي مفهومكي إنه دلالات الألفاظ إنه أمركم معناها نودك سيه ونهيكم معناها نودك سيه لفظي والبي جملة والبا معناها إيلاد هاي مد والبا شواهد وكان تنشعر كان ومرقاتي عبد الله بن عباس نوحير إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فعليكم بديوان العرب حداد شيء قرآن كميد هي إذا كقر صامود قرو ويسان قرآن كحقيقة قرآن إلهي سمده قرآنا عربيا غير ذي عوج قرآنا عربيا بلسان عربي مبين قرآن هو لغة عربية عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحلي قرآن كويهد كانوا إذن ديوان كعربية صافيرية ديوان كعربية قالوا قرآن مارك أشعارتي هو أشعارت عربية عربتم محي شعر كان محي أشعارته دي كوير هذين ما إلهين أشعارته كتب عربت كتب قرآن ما إن اللهينه شعر كاسون بي هذا يكلا سو نقليان او midka ninka fasiixa in hadda uu tuurayo midkii horan laga soo naqlinay hadii imaamka qaaliga saxaabiga tarjumaan quraan saxaabiga ibn saxaabiga abdullah ibn abbas uu leeyahay quraanka wixii aad idinka iskaal gal diiwaanka carbeed oo loo raadiyo oo arabta gabagoodiya ninkana uu gabaga carbeed soo ururiyo shay kasto sheego xukunka shicirkan carbeed u daliila لفظك قرآن كأو دليلة أما شعر كان عربية أو دليلة وقواعد كل جودة اللغة يكون أشعارتنا اللغة العربية قواعد تهي قرآن كنا ده قواعد الدين توي اللغة هاني الدين هم بيسجع قاعدة سليق الإسلام كسجع لبدي قالوا أمريكا إسديد دنايين قالوا البوي برارك توري الله ومعنا في عنه يكون الرواية وكل سحين دين اللي ساقب توي ولفظك حديث كمان اللي ساقبته لفظي حديثك هذا قبنين وحما هيسيد وين مهمة السيدة لفظي حديثك إن قبته هذا معناها إنه ليه نخو سيدره دلالات الألفاظ لفظي كليه مجرد هلا تجناني أنت أنا معنو يالن كراه معه نقد برك إمامنا الشافعي أول من سن ننجي ذي ننكي وهريي دلالات الألفاظ الفاظ اللغة العربية معناها أيلاد هاي اشتقاقي معهن إعرابكي معهن فنونت مدبا معنى قاره ليهي الفاداني معناها أي كفر دو ننجي ذي نيكي كوادوها نصيبك إساقالي انت كتابك قرطي ثوابك أي كليهين انت أغرزتي انت أغرزي أجرق إليهين أو كلو كلي إليه سو إساقا إسلامك كبر رجيه مركا حفل احتفالك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الله سمعينا إساقنا واسيدا سوكلو هل شيء خلده هذا اللي قد هي ما اللي هلي ماي اسو إماتين إن الإسوانية إن صدق الله لبعه إن سيرة النبي اللي يسوع النبي جعل محبة اللي يسكب بورية وحكوا له دين تنادي دين تنادي أو سنان معناه وناجان أو عن مال دليل يمال حن عن لهين قف كيري مال سوق كان صدقنا مال يكون قرية ولو شيء قرآن كل شيء ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وانفقوا في سبيل الله قرآن كو صدقادي ددك كبوري ما لا يهد سيرة النبي ما كشاكينتيدو قيدنا ما لا يهد صدق بالك الاورنجري اجتماعا wax kale awal dii loo ilaysu kulmi jiray ashyaadaas wada khayrka oo meel kaligeed laga daayay masadaqada laga daayay xagee dhaliilka leedahay meel ay dhaliilka leedahay male تي أردالو إن كانت قبتها أدي سموه حماي وحكا قاضا دونا دولتي دي حمركي جوكتي شماليها ميد أردال داس كميدا إيو أنا يركلون كجرنو بعدنا ده مرتي باي مركا ستيشن الإسلاك هايكي نينكي تليها بوليس كسليقها يستيبا ورصدية وحو يرنيو
nimankan dariiqada leeyahay masuufiye leeyahay maxaad ka aaminsantaa waa kufaar iyo mushrikiin waay waas ninkii booliska saldhigga haystay markaasuu wuxuu yidhi oo nin maxay ku gaaloobeen wuxuu yidhi waxay akrinayaanay ku gaaloobeen markii la gaaru yidhi masjidkaas ii dhow macalin maxamed biyamaalow la yidhaaha ii dhow waa howlwadaaga xaafadda markii siyaarta macalin maxamed biyamaalow la gaaro dadku way isu yimaadaan markaas halkaa rashiidiyo halkaa raxmaaniyo halkaa zeeciyo halkaa uweysiyo qolo walba anugu waa la dikriya kulligood laa ilaaha ila allah way leeyihiin maxaa qaldan kulligood waxay leeyihiin inay ku gaaloobeen oo ma laa ilaaha ila allah waa lagu gaaloobaya haa yiriida lagu gaaloobaya maxaa lagu islaami waayahay xagee wuxuu yidhi see loogu gaaloobaya laa ilaha illa waa tii diinta lagu soo gelaya isla qaadiday ku gaaloobeen maxay isla qaadeen bal ininkaa fahamka heerka dadka ay gaarsiisan yihiin tii oo kale khayrkan hadda meesha lagu hayo macruufka la isfarayo munkarka la iska reebayo iyo waxa khayrka oo la samaynayo iyo siirada nabiga salliga nabiga khayrkan meesha lagu hayo hal xabo xun kuma jira hadda maxay yiraan ardaaladu maxaa isku meel la isugu keeno taas khalad yihiin in isku meel inta la isugu keeno maalin kaliya maalin laga dhiga ayaa khalada markaas meel loo maraa la waaye diinta islaamka dhamaanteeda khalada waxay wadaan markaas nuxurku iyo murtidu noqonaya muslimiinta waxay rabaan inay baraarugaan hadda ka bacdi waxa dhici karta inay dad nasiib u yeeshaan wax khayr ah oon hor loogu baraarugin inay dadka lagu baraarujiyo oo dad nasiib u yeeshaan khayran hor loo samayn oo dadku aynan samayn inay sameeyaan oo dadka ay tusiyaan waa dhici karta maxaa yeelay nabi maxamed baa wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ummati kalmadari laa yudraa awaluhu khayrun am aakhiruh ummadaydu roobkay la mid tahay baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo khayriyadii kuwii hore lagu sheegay inaysan keligood ku koobnaanin weligood dad khayrle in la helayo isagoo muujinayo wuxuu yidhi roobkay ummadaydu la mid tahay roobkana bilo dhan u da-a macnaha fasalyaalka markii maalan rabiica oo kaleeto guga hal mar ma da-a roobku iyo maalmo badan u da-a xiliyaal badan u da-a barakadu midkay ku jirta lama oga xilliga koowaada barakadu ku jirta ma xilliga ku xiga ma xilliga kasii dambeeya ma kan ugu dambeeya barakadu biyo keligood ma taraan ogu intaan roobku diimi dadku biyo waa haysteen barakada roobku ma bilowgay ku jirtaa ma dhammaadka ma dhexbartanka lama oga ummadayduna waa sidaas oo kale rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam oo bilow iyo dhammaadba khayrka waa laga helaya haddii aad ummadda awalkeedii aad ku ogee dad khayr badan inay yihiin oo aada loo ammaanay ogow aakhirkuna inaysan eber ahayn oo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiid macnihiisu u ahaa waxaa imaan doona dadka zaman halka qof oo diintiisa si dhaba u haystahay uu ka fadli badan yahay 50 qof uu ka fadli badan yahay asxaabtu su-aalay ku celiyeenoo waxay yidhaahdeen nebi allow ma 50 annaga naga mid uu ka fiican yahay mase 50 dadka kale ah 50 adinka saxaabada uu idinka fiican yahay nabigu yidhi xilli waxaa imaan doona halka qof oo diintiisa si dhaba u haystaahi uu 50 saxaabi ka qiimo badan yahay oo ka fadli badan yahay marka khayrkii inaysan bilowga kaliya ku jireen dhammaadkana ku jira meesha ka muuqatay oo hadda qarka u saarana xilligan dadkii ay halaabeen oo diintii ka tageen diintii laga dhigay dhalaalka adduunyo hadda miisaanka mandarka waxa la saaraa iyo dadku wax ku miisaaman wadaadada cusub inay fiican yihiin say xoolo u haystaan Soomaaliya arag sidii dhalqaalo u haystaan say qurxooyin Soomaaliya wadaadadii horma fiicna gaaje micla la qojo lafsayay ilay kullu cabayahagu ama goormay dhaqaale fiicnaan iyo xumaan midna keeneen haddii wadaadada cusub ay fiicnaantoodu ay tahay oy ammaan u keentay inay dhaqaale leeyihiin buush iyo baleyra kasii dhaqaale badan ogow gaalada kuwa waaweyn kiristaamada kasii xoolo badan iyagana marka kuwaas ayagana kasii fiicanay noqonaysa hadday inaga nooga fiican yihiin kuwan ardaalada inay naga xoolo badan yihiin iyagana kufaarta kale kasii xoolo badan oo kasii fiican mar haddii xooluhu ay miisaan noqonayaan kufaarta dadka ugu fiican marka nuxurku ha noqday marka qofka horta miisaan kaa saaray oo yidhi alla wadaadadu say fiican yihiin xoolay haystaan Soomaadna arag waa ardaal ogow waxa qofkaasi caqib miisaan male dadka uu amaanay laftoodana waa eedeeyo iyagana waxa ka sii fiican kristaanka ka sii fiican way hatta kuwan diin baan ogoleen kuwaas ka sii dhaqaale badan xoolo been lagu kasbay iyo khiyaano iyo dhagar oo agoonan u geeyay masaakiinan biila iyo been inta la sawirta loo geeyo hadhow tijaabka lagu shubto hadday taasi ciise iyo sharaf keenayso gaalka baa sharafta yeelanaya laakiin taas sharaf ma keenayso waxa qofku sharaf u wanaag u ah alla diinka suu yaqaan maartay suu ugu dhaqmay maartay taas wanaag ahaan laheed xoolo haystaa waxa weyn qiimo male hadday xoolo khiyaaniya been iyo dhagar ugu keenana ka sii darana waa hoog iyo halaag
وقفكاسي وحو صوت بعض حابدي أسيق لغشيد لها waxaa nuxurkiiyo murtidu yahay rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muuminiin ay horta xafladiisu wax la taaga ma ahan laakiin aan xasuusino qolada ataagaysa iyaga un baa isdileen oo naarta iyaga u raadsadeen gacmooda ku raadsadeen nabiga nagu wuxuu ahaa ilaahay wuxuu noo tilmaamay salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi rahmad ilaahi nasi isaga lafт soo diridana loo soo diray baa rahmadaheedu ilaahay wuxuu yiri wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nabi Muhammad waxaan ku dirnay idigo caalam yaalka rahmadu ah mar hadii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irsaalkiisi bi'ithadiisi haday rahmad ahayd irsaalkii ma hadda jooga hadii irsaalku rahmad yahay jiritaankiisa ka sii horeeyo rahmada haddana ilaahay ba abuurin mar loo soo direen ogow wuxuu ilaahay haddana ayad kale ku leeyahay laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ilaahay wuxuu muuminiinta galad weyn nicmo weyn wuxuu u galay markuu rasuul iyaga kamida u soo saaray waa rasuulullaahi Muhammad bi'ithadiisi ba ayada ilaahay ku sheegay tii hore meesha irsaal la ku sheegay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin oo irsaalkiisi ya bi'ithaha wax raba rahmadaha irsaalkiisi ba rahmadaha de bi'ithadiina waa rahmada quraanka la ku sheegay iqra bismi rabbika markii la yirina waa rahmad labadaba waxa ka sii horeeyo rahmada jiritaanka ilaahay uu jirsiyay waxaan rahmad ilaahay nasiyay ahaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ali akhlaaqdiisi dabeecadiisu waxay ahayd mid wada rahmada fabima rahmatin min allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلهي وحو شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه سنساقو إسكالهين وحو أهايا إلى سيي نحريس إلهي كو قلياد وقو جلع سناتي بالي النبي محمد دادك واحد وقو جلع سناتي ونحريس إلهي كو قليي مركز الضبي عدي سي وحي إهدي أخلاق دي سو رحمت بي إهد بعثدي سو رحمت بي إهد إرسال كين الله سو إرسالي رحمت بي إهد دلشدي سو رحمت بي تاي مركي كل نبي نو رحمت نوي هاي إنك أو إله نسيه ويهي برواقيه هاي إنك محانا لقود بون إنن إلهي كو شكرنا إلهي وحوليه هاي نعمدي عن دسيه هكو عاسن نقننا هايقو عاسننا نعمدي يقى شكرية واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون markaas nuxurkii murtida aanu danaynaya ay tahay ikhwaan yaalo dadkan ardaaladahay nabigu naxariis ma ahayn nicmo la nasiyay ma ahayn miyay oranayaan haday yiraahdaan waa gaaloobeen kufaar gaalnimada cadaysatay noqdeen hadii ilaahi nicmo iyo naxariis uu nasiyay uu yahana te ilaahi shukri buu nagu adoonsaday waynaanu ilaahi ugu shukrina nicmadii uu nasiyay shukriguna nooc gaar ma aha sadaqa bixi soom samee waxa khayr oo samee shukrigu waa awaac taacad hal nooc kaliya ma aha wixii aad sameeydo oo nicmada ilaahay ku siiyay aad uga shukridaba iyaga laftooda nicmo hadii ilaahay nicmo ku siiyo oo nicmada ku shukrinteedii darteeda aad u soonto soomkaad soontay oo shukriga ahaaba isaguna nicmo kala oo shukri kala siibaaye soon kala ku siidar hadaa ilaahay nicmo ku siiyo nicmadii uu ku siiyay darteed salaad ula timaado salaada tukatay baa lafteeda nicmo oo salaadii shukriga ahayd oo ilaahay inaad uga shukrido darteed ula timid iyada nicmo ilaahay baa ku siiyay iyada lafteeda ba ka sii shukri hadii aad sadaqa bixiday oo nicmadii ilaahay ku siiyay adoo ka shukrinaya aad sadaqa la baxday sadaqada bixinteeda nicmo kala ah shukri kale sii rabtaa nooc gaar ah oo la yiri noocan kaligiisa shukriya ma jire ilaahay wuxuu nagu adoonsaday wixii nicmahu nasiyo ilaahay inaan uga shukrino washkuru nicmatallah in kuntum iyaahu ta'budun dadoo hadaad ilaahay ku caabudayo kaligiis tihiin ilaahay nicmadiisa uga shukriya markaan ilaahay wada nasiyay nicmadaas nidhaahno oo aan nicmadii uga aan ku shukrino oo nicmada hal qariya lama dhihina hal muujiya ilaahay yiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nabi maxamed nicmadii ilaahay ku siiyay muuji ya ilaahay hadaynu yeelno nicmadii ilaahay nasiya aanu muujinay oo ilaahay uga shukrinay cid markaa tiri way khaldan yihiin waxay rabaan ma inaan ilaah loo shukrina mise shukriga in la qariyo meel luuqayo qofba meel kula dhuuntay doonayaan labadooda mid ay doonayaan mid quraanka garamarin ilaahi nicmadiisa yaan looga shukrina waa quraanka oo la garamaray shukriga hal la qariyo hal la dhuuntana waa nicmadii oo quraanka oo la garamaray war dadku waa lu go'eene bal iyagu sideed anagu taantaanadu hadday ay u dhadhami weysay tu ayagu shukri ha sameeyeen bal xaflad kale oo shukriya taanada ka qurxoon oo hadday islaam yihiin islaamnimada ilaa uga shukrinayaan
hadday nabi maxamed raacsan yihiin nabi maxamed inuu nicmo inuu yahay u arkaan in nicmadaas ilaah uga shukrinayaan bal nicayo xafladaa sameeyeen bilkulliyati iskuulaadka iyo xoogaa markaan lacagaa soo xadnay iyo khiyaano helnay keliyaan ka shukrinaynaa oo ayaan dadka tusinaynaa haddii ay tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam nimanku inay diidan yihiin oo yahuud yihiina iska caddaanaysa muuminiintu inay baraarugaan waay wax nasiib daran oo hoogay unbaa marka hadda iyagu kuwaas dabagelaya iyagu wayba ba-eene dadka u bareeray diinta islaamka inay googooyaan oo qandaraas ku qaateen dadka hadda markaan haatana wadaadnimo u daba jooga markay qarxiyeen oo eber ka dhigeen oo baabi'iyeen ayaan dhexdaas waxaa Nairobi joogay oo la yiri maan arkin laakiin wala ii sheegay nin inta Yurubta ka soo noqday meelahaas ayaan jiray xogaa dhaqaalaha soo helay ee yiri islaamka ilmahayga dhaqan cilin baan u geynayaa Soomaali Muqdisho geeyay ee cunugiisa ilmihiisa mid ka mid inta loo soo dhibalay adoogii habarta sariirta habeenkii wada seexdaan bamkaan u hoosgali ilaahi waqtigoodii baa dhimanay cunugii bamkii inta meeshii hoosgaliyay sariirtii hoosgaliyay ayuu wuxuu hilmaamay cunugii orod iskuulkii orod gurigii ka tagaa la yiri meeshii aado marka sariirta hoosgalido guriga dabadiisa inta fariisatid markay seexdaan bamka remote-ka u taabaa la yiri ninkii waqtigiisa dhimanay kulli mar walba waa u dhimanayaa waa nin cadaada waa nin la yaqaano ilmihii markii cunugii yarka ahaa bamkii markuu meeshii geliyay macallinkii ay soo fasaxay cabaar guriga haduu joogay waan tagayaa waxaanaad iyo kuleejkii inuu aadama raba dabadu rabo inuu ku soo ciidanay seexato waa ilmo yara waa hurdi intii ciddu seexano isagu dabadu fadhiye hurdi guriga ganjeelka dabadiisu joogaa dadkii meesha maraya cidii guriga ku garaaceen war ma maxay cunuga meesha hurdaya meesha ka qaatay cunugu waa la soo qaaday sariirta la seexiyay warba ma hayo waagiya bariyay markii waagi bariya la kiciyo war wax saxunaad iyo shawrad iskuulka aad markaas oo cararay remote-ki jeebka ugu jira wuxuu yiri saas ay noqoto way hurdi caaway lacag fiican inta la soo siiyay seexan caaw bamkii meeshii u jira laakiin cidda inta soo salaamtay meeshii afariiso oo waa kaasa hameenkii labaadna dabadu ku hurday inta ciidii sheekaysanaysi hameenkii saddexaadna waa ku hurday saddex hameen markii ay marayso hameenkii saddexaad waagiisu haduu bariya odagii cunugii taabtay masajeebkiisa waxa ku jira lacag $200 oo tiradii ka badatay iyo wuxuu san garan waa remote-kii cunugii intuu san kicinin buu u yeeray wixii ciidamo u yaqaanay wuxuu yiri cunugan waxaan bal ku arkay la fiiriyo lacagan macquul ah inuu caruur la siin kareynin $100 maahan xataa $100 maahan lacagan macquul ah ajmaal markuu la yiraahdo waa sida iga noqoto waa hurdaba lacagta loo soo badiyo caawiyo saxana leeyahay warwaa rumuuda bahalkan ragii yaqaan waxa yar bamka lagu qarxiyo weeye bal guriga la raadiyo mise sariirta hoosteedu yaala cunugaas marka iskuulka inuu noqdo rajo laga qabay ogow iskuulka cunugi lagu celin reerka soo waxa ma oga cunugaani ogow reerkii oo dhan marka diyaaradda la soo saaray Nairobi aanu joogi jiray ninkaasi ogow ila waqtigiisii dhimanay ogow ninka marka uga soo tagay Yurub uga soo tagay ilmahayga diinta baraya dhaqan celin oo wuxuu soo doonta ay tahay odoga inta meeshan u gelisay habarta bamkan ku soo qarxi dad badana sidaas horta kasbanay laakiin cidna ku eedemayaan ogow haduu qofku isagu gacmihiisa isku qarxiyay madrasadaas kulligeed argagixisada oo saddex tawciid meel lagu dhigay hadda horta qarax ka filo adooga la diliya iyo habarta la diliya waa kala la leeyahay adooga habartu zina isku qabeen oo kaas la leeyahay qofkii madrasada geystay ogow nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaliya in ilmihiisu ataagan kuma ekaan doonaan iyagana dhibay gaarsiin doonaan markaas waxa isku baraarujinayna nabi Muhammad sallallahu wasallam alayhi xaflada qaaliga oo loo sameeyay ceeb ma lahan daliil ma lahan dadku markay soo yimaadaan been ma sheegaan oo wax ma sinaystaan oo wax ma xadaan oo qayaano iyo dhaanta ma sameeyaan ee khayrka isku baraarujiyaan shartay isaga digaan aan hadda sheegayno oo argagixisadaas laga digtoonaad leenahay waa shartay in la isaga digahay waajib waay al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa haq diintanada sidaas inaan ma'rufka macnaha aan isku boorino inaan munkarka iska reebno nidhaahnaha laga digtoonaado waa sida diintanadu ay xaq ku tahay waxaan isku boorinaynaa rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam cid nasiib leh baa xafladan u sameeyda saas u maamuusta nabigoodii jaclaantoodii ayagoo ka tarjumaya waxaana la rajaynayaa inay ilaahay ay haddii ikhlaas lagu daro ilaahay darti loo sameeyo inay meel fiican ilaahay agtiisa ay ka tagi doonaan oo wax wanaagsan ilaahay uga abaalmarin doono waxaan khayr ilaahay uga rajaynaynaa intii wanaaga sameeyday intii ka soo qayb gashay
waxaan isku boorinayna nabiga la xawgiisa inaan ku dhaganaano ogow shaygii la jeceliyana ogow waa la sheegaa shayga haddaad jeclaato والشيء ما دين كرتي شيء دي سمد دين كرتي ده أنا حب شيء أكثر من ذكري مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء دي سبادينه سيرة دي سيرة كشيكين إني وانا جيسي عن اسكوب بورهنه عن حفلة ده سيب بدين كرنا هرت ديمو النقطة يا نبيلينه عن سيب بدين هلنا أنا حسوسين أو نمانكو ديديست أي ديدا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم موجين تلا موجين ياهي إنك وحوين بين ترتي halkay wax badan noo dhibtay wax weynayna tartay oo waxayna tartay awalba waqti dhow ka hor iyadoo xafladana aysan ahayn bil iyo sanad iyo kun iyo sanad ka badan ayoo soo socotay kun sano taqriiban iyadoo xaflada noocan oo kala ah iyadoo soo socotay xaflada noocan oo kala qarnigii lixaad bay bilaabatay baa leeyahay iyadoo ay waqti dheer soo socotay يا هذان مركان سومالينا هي حفلتان وكلا مولد كمان نسمين جرين غير والباهي كالكيس وبحوجا قربان كيس سبي سنجري إن أنساس نبي قصيم وجنا وحوصوا يجا أردال هذا مركان نبي قاتاجين إنه نوي نتدلين النبي دفاعنا صلوات الله وسلامه عليه ونعم قليل واحد لح بقول سنة كهر أنا لسمين ما في عننا هاي أوران أو وركاس أردال هذا كذا دعينه إسلام كم مربى وفهم وحبال لقصو بيرين يو نصيب قال يضدو يشان الصوش يجنيو فنقا المصطلح الحديث كاللي رابا قرنقي شان هذا يسوي ولا صعب مصطلح الحديث فنقا تقان علم الحديث الدراية خديم الغزوين وقرنقي شان هذا هاي اسكاله مركا هدان أفرتي قرنيو كوريدي هدان بل من وشركي وحوية اللي اسكدها يميان رهنا ميا فنقا قراءة كاللي رابا علم القراءات أحكام القرآن كوسابسن وقرنجي أفراد قرنجي سدحات حتى متجوجين قرنجي كواد متجوجين كي لبعض متجوجين كي سدحات متجوجين قرنجي أفراد واي إمام الدارقطني يلا سدح بقول يليح مركي تاريخ الإسلام كو أي هذا شيء علم القراءات وسببه أو ضدك تصير أول من صنفه وكتاب كقرنين كي كواد كها هدي أي تمرك مالين والبشيء عصب الإسلام كالغصة بيرين أو فروع دي أو صوشي ما هي أو لقادنا يهداد أول أجيد تاني خير كأم بيكمل تلا صابيرية قرنجي لحد بمركز إسلام كان النصيب له إلهي جو أدي ونن عالمه عارفه قال إلهي نصيب وقد وهنت الله يستي هاي حكمة سوالده مسوق يعني ما هيسم وحبسهم كعدمان هذا كوسه هو يتنين وعبه هيسم وعبكم مقرو نينا وحين نينا وحقورين سيد وكلواني من مسوق حب مقلعه لكن وح قال نينك وحنا هيسته حول حلال هيسته وبدل إلهي إنه بحيه وكو إلهامي أبو الهيثم من التيهان وكله والنبي صلى الله عليه وسلم أوير نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح همين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقاجة قرقي سيلا جيف واي وروحوا الدنيا قيمة لها نبي محمد اسكاك دوبنا لها الدنيا تعدي قيمة لها إساقوا جيف قبان واي نين عدولك قبان واي قاجة درتين أيو انت تكدها شو تكور دوتو اسكا صعو يسيري مال قارو مصعد أبو بكر الصديق وأثنسيد وكالدين عيسرول كقوان ويا جاجدر تيسو صادعين أنا والبعيد قارو مصعده أنت الكسر داش إسكور وريقة تكور دوني ساعة أبو بكر وحي رسول الله محمد وحي قال محاكو سوكعي إنا لله وإنا رجوع محل قال سعوته وحي أديكو سوكعي أنا يسوكعي نبي قرت وحسو ولا سيحين ويا جاجتاي لبدو ذي اسكالو قينا يا مال قارو السعونين وإسكور وريقة يا مدينة أمر لصدحات عمر الخدام سنردوكو سوير المحل اللي كان يدي سوكعي وحدي يكون سوكعي أنا سوكعي صدق مركي نقول النبي وحير عاود مالك نقول له ميسان وكان كان أبو الهيثم من التيهان صحابي أنصاري جاب النبي وقول جيسيت جاي وأنا حاجة دور ريال عارف بدل حتى ماله إسلام تهدي له تجاوي أبو الهيثم مركز واحد تربيه معانو نور هذه عيلك مدينة بيه الموضة معانين وباللوج مركي مدينة عيل بيه معانو عبار جلو بيه ودونه ماشي جوجل ودك تعبار ماشي هذا إسكا فريستان سووا بيه لور دايو سووا عن النبي محمد يعيد كلينو سؤال إنسان لكن يركز بيه وضو يمد مركز سوف فرح الله كلا بتبتو وحير الله عاو نصيب بني إف كورك هذا مسار عاو عيد إجا مرتفعا عيد إجا مرتفعا أرض كورك هذا عاو مجوت سإلهي خلقي النبي يوقف عنا يا أصحابتي الرسول كلا بدي يوقف عنا تصدق هذا سوي جوجي مديو قات بيرتي انت كو أرضي لو رجيدو تمر ولاي بيرتي انت كو أرضي أيو حوسو جوي هل رعبة
oo miro ceeriina iyo miro hadda bislaad bilaabeen ay ku jiraan miro si fiican u bislaada kuma yaaliina ogow miro hadda bislaadka ku bilbilow yihiin oo dhandhanaana iyo kuwa ceeriina marka kuwii maxoogaa bislaad ku bilaabay xabad uma soo gooyine waa dadaalaya laantii oo dhan soo gooyay waa ku soo agtuuray markaasuu mididii la ordo xeradii kula orday sida nabigu markuu arkay sida ninkan u marqaansan yahay u maxabaysan yahay wuxuu yidhi warrida irmaanka iyaaka wal xaluuba warrida irmaanka reerka ha ka dilin midii u soo hormartay inuu guriga goynayo u qiyaasay war walba midda irmaanka ha birayno reerka neefka irmaanka reerkii gabadhir neefkii inta bireeyay bay gabadhii mar kale reerkii inta bireeyay intuu bireeyay neefkii bay gabar farshaxanayd ay hadiiba ka soo gaarsiiday intay mirihii taataabanayeen lama cuni karo wax dhanaana way miro dhanaana intay taataabanayeen ayaa mar gabadhii wuxuu keenay beerkii cajab waa la sii isticmaalay beerkii intii lagu sii falfalaaday la sii taabanayay hilibkii iyo marqii ay yimid waa laga baahi beelay markaas nabigu wuxuu yiri salawaatu Allahi wa salaamuhu alayhi ni'mal maalu saalihu fi yadi ar-rajul salih alla qaalisana maal xalaal ho nin deeqsiga gacantii ku jira masuuqa duuya ridiisaas waa uga masuuq lahay ogow niman hayna hadda waxa ma gali ogow ninkii aanay muxuu ku qali wuxuu ku siiya lama arko marka qofkii inta ilaahay xoolahan tisiyo inuu rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu ku tacdiimiyo ilaahi uu ku ilhaamiyo arkaas nasiib badana waxaynu isku boorinaynaa rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niman qandara soo qaatay ee argagixisahiyaysan ugu dirin waa zanaadiqa wax diina male haday dani ka soo gashana wali wad arki doontaa iyagu ku garbinaya hadii dani ka soo gasho hadii la yiraahdo xoogaa dhaqaalaha la siinayo cidii xafladda sameeyda waaba la ogaanba wixii ka dhacay arki doonaba marka nimanku intereskooda hada meeshu ku jiro bay aadayaan inta intereskoodu ka soo gali doonto meesha xafladda rasuulullaahi Muhammad anaga intereskanagu aakhiro way rasuulka rabitaankiisa sallallahu alayhi wa sallam way inaynu nabiga naga jeclaano isku boorino oo aan waxa aan haysano waqtiganaga iyo hantidanaga iyo wixii aan heli karno dhan nabiga tacdiimintiisa aan u qorno oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu jeclaa muslimiinta in la anfaciyo muslimiinta aan anfacno شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له أن سكبورينه أن كود دالنه هذا وبالله التوفيق والله أعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم